tan iyo markii xabad joojinta Gaza ay dhaqan gashay 10 Oktoobar 2025 Israa'iil waxay jebisay heshiiska ugu yaraan 969 jeer ilaa 28 Diseembar 2025 sida ay sheegtay xafiiska warbaahinta dowladda Gaza. weeraradaasi waxaa ka dhashay ugu yaraan 414 Falastiini ah oo la dilay iyo 145 oo dhaawacmay. noocyada jebinta waxaa ka mid ah duqeymo cirka iyo madaafiic 455 jeer, rasaas lagu furay dad ra'yid ah 298 jeer, gelitaan deegaano ka baxsan xariiqda jaalaha 54 jeer, iyo burburinta hanti 162 jeer. sidoo kale 45 qof ayaa la xiray. Israa'iil waxay weerartay Gaza 67 maalmood 81 maalmood ee xabad joojinta, iyadoo kaliya 14 maalmood aan wax rabshad ah la diiwaan gelinin. inkastoo heshiisku farayay gelitaan gargaar buuxa kaliya 42% gawaaridii gargaarka 19,764 ka mid ah 48,000 ayaa galay Gaza. cuntooyin nafaqo lehna waa la xanibay. dhinaca maxaabiista, Xamaas waxay sii daysay dhammaan 20 maxbuus ee noolaa 13 Oktoobar waxayna ku dhowdahay soo celinta heshiisyada. Israa'iilna waxay soo celisay in ka badan 300 oo meyd Falastiiniin ah, qaarna lagu arkay calaamo jirdil ah. guud ahaan tan iyo 7 Oktoobar 2023 ilaa 29 Diseembar 2025 khasaaraha Gaza wuxuu gaaray 71,266 la dilay iyo 171,222 dhaawacmay.